magaalada muqdisho caasimada Soomaaliya muddooyinkan dambe waxa ku soo badanaya kooxo ku labisan dareeska kala duwan ee ciidamada dawladda kuwaas oo dhac u geysanaya dadka shacabka iyo sidoo kale ganacsiyada ku yaala hareeraha wadooyinka muqdisho 17 degmo ee gobolka Banaadir ay ka kooban tahay dadka shacabka si isku mid ah habeen iyo maalin ay ugu dhacaan kooxo hubeysan oo dareeska ciidamada dawladda ku labisan shacabka ayaana inta badan waxa dhac lagu geystaa degmooyinka Hodan waa bari Yaaqshid wadajir Dharkeyle Xamar Jajab iyo degmooyin kale waxayna mararka qaar dadka ay dhacayaan kooxahaas u dilaan agabka ay ka dhacayaan oo dadka qaar ay isku dhajiyaan ama diidaan mararka qaarna ayba dadka goobaha ganacsiga ku weeraraan agabka yaalana ka qaataan dadka shacabka ayaana dhibaato xoogan ku qabaan kooxaha dhac u geysta oo ku labisan inta badan tuutaha militariga iyo booliiska taasoo keentay in shacabku ay cabsi guryahooda kaga soo bixi waayaan iyadoo aysan laamaha ammaanka dawladda Soomaaliya arrinkaas waxba ka qaban Maxamed Bashaar Barre Jaamac oo ah wariye madax bannaan ayay maalmo ka hor dhac afduub kooban iyo waliba jirdil u geysteen xilli galab ah koox ku labisnaa dareeska militariga degmada Hodan gaar ahaan Taleex waxaanu goobjoog uga warramay qaabka loo dhacay iyo sida ay ku soo weerareen kooxda dhacday annagoo socon waxaan ka helnay bajaaj kale oo ciidan saaran yihiin waana lagu horgooyay ciidana ka soo dagay ku labisan dharka ciidanka militariga cidna la hadashay ma jirin waxaana lagu bilaabay in si qasab ah maaragtay loo soo dejiyo marka qoriyihiina lagu qabtay aniga iyo ninkii odayga la socday waa qalqalnay waxaan ka degnay bajaajkii aan saarnay qofba dhinacu carray dhinac markuu carray marka waxaan awood waayay inaan maaragtay askartii iyo orodkii xawaarihii inaan meel saaniyan ku carro way iga daba yimaadeen waxay ugu bilaabeen inay dilaan qoriga leefkiisa igu garaaceen xusuun ka direen haraantii rabaaxsho iyo maaragtay qorigay wateen inay igu garaacaan waxaan isku dayay inaan weydiiyo waxay iga rabaan waxay igu qasbeen inaan raaco oo maaragtay iyaga raaco waxaan weydiiyey meesha ii wadaan iyo maaragtay waxay iga rabaan ima aysan jawaabin waxay igu jawaabeen inay dilaan oo ay baadka qoriga igu garaacaan si qasab markii dambe waxay igu saareen bajaajka ay wateen waxay ii sheegeen inay maaragtay saldhigga geyn doonaan waxaan haddii saldhigga geynaysan okay markaan sii dhaafnay isgoyska Taleex dhinaca Kaasifa Balaare yaan la hadladana way dileen waxay la aadeen dhinaca African Village meel dadku ku yeeriya cidlaha ay bajaajka istaajiyeen way soo dejiyeen sidii si la eegay gacanta dhaawaca gacanta ka siiga muuqday iyo garabka iyo xusulka iyo qoriga iga garaaceen waa ifriisiyeen markaas waxay baarteen jawaabkay moobiladan watay la baxeen boorsadii kombiyuutarada ku jireen ay iga qaadeen lacag yar watay qaateen bajaajkii sarnayna ku laabteen sidoo kale Cumar Rodal ayaa ka sheekeynaya isaga iyo afar kale oo saaxiibadiisa dhac ay u geysteen koox ku labisnaa dareeska ciidamada booliiska kuwaas oo dhac u geystay wadada Makka al-Mukarrama anagoo 5 qof waxaan dabacnaa iska majabaxsano dabcan waliba anigu aan soo jeediyay talaa in tiimku ay lugeeyaan halkii mataqaana ama gaari ama bajaaj la qaadan lahaa saxaafadii noo geyso maadaama aan xilliga wax xabsiya aan filanayn waxa dhacday hal mar san wadadiisa haynay in naga hortimo bajaaj dabcan kuma aan baraarugsaneyn bajaajada wadada maray la mid ahayd balse bajaajtaas waxay kaga duwan bajaajada kale hal mar baa waxaan iga soo degay saddex kamid ah tuugada moobilada furata kuwaas oo ku labisnaa dharka ciidanka booliiska waliba ay u dhameystireen xitaa booshaskoodii iyo qoryahoodii la yaab ay nagu noqotay in inta madaxa naga wada saaran qoryihii dhahan haystilina qaar kamid ah saaxiibaday waxay u qaateen hawlgal kale oo socdo oo amniga la xaqiijinayo laakiin wuxuu noqday in ciidankaas iyagoo hayaan kuwa amniga khalkhal gelinaya oo isla markaasba telefoonadii iyo wixii aan haysanaba halkaan la kaga furtay dabcan magaaladu intaas oo kaliya halis ma jirto waa dareemi kartaa wadada dhameeyo halbowlaha magaalada ahayd Premier Bank horta 12 barkii fiidnimo oo dadku madus dhex marayaan ciidan mataqaana halka dad ay ku furtaan waxa kale oo ka jira magaalada waxa kale oo ka dhacday يعني mid kamid ah goobaha businesska magaalada lagu iibiyo moobilada waliba ku taala isla area-dan la kaga qaaday meel u dhow in habeenkii laba habeen kadib in loo yimi gudaha loo galay telefoonadii meesha carwada yaalo oo dhan la urursaday inta baastoor lagu qabtay sidii salimada bajaaj laga raacay dhanka kale koox ku labisan dareeska ciidamada militariga gaar ahaan dareeska Gorgor ayaa waxa shantii bishan ay ka dhaceen kaamira qaali ah agabkii kale ee kaamirada telefoonadii iyo dhammaan agabkii kale oo watay muuqaal duube mahadtawakal oo ka tirsan TV-ga Shabeelle waxa uu iga warramay sida ay dhacdadaas u dhacday anigoo ka imi shir jiraayad oo magaalada ay ku qabanayeen qolo aan markaa u adeegayna oo telefishinka uu news u aaday
gabagabadii waxay ahayd saacadu marka aan tilmaamo abaaro 2 saac iyo bar ayaan ka imi shaqada oo aan albaabka Shabeelle istaagay xilligaas oo ka soo degay bajaaj ciidamo ku weesan dariiska ciidanka gorgor si ay Shabeelle hore u sheegtay oo marka ku libisnaa maxaa la hayay kan indhaha lagu xirtay iyo koofida guduudnayd ayaa qoryo labada dhinac ay la dul istaagay bajaajka marka ka degay istaag bay yiraahdeen waa istaagay waa soo sheegay waxaan ahay wariyo waxaan u socdaa idaacadan oo u shaqeeyo waxaan isdhaayay waxay ahaayeen ciidamo sharciyeysan oo la yaqaan oo la tixraaci karo dagaal isqabsi dheer aan dhaxmaray marka aamus iyo waxaan dhahayay iyo wariyaan ahay inta way aqrin waayeen way jir dileen qoryaha iyo waxa haystaan bay adeegsadeen Maxamed Bishaar Umar Rodol iyo Mahatawakal ayaa si isku mid ah ugu baaqay in dadka shacabka ay feejignaadaan oo taxaddar dheeraad ah muujiyaan dawladana ay arrinkaas wax ka qabato maxaa wax soo qaadan weysa bal leeyahay marka hadii xitaa ay dhacdo inaad niclo maxaa soo qaadataa lagu leeyahay hadaan haysan xitaa telefoon weyn marka waxaan kula talinayaa in guriyooda joogan xilliyada dambe cishaha wixii ka dambeeya ah cid kasto ay qusayso inay maaragtay arrintan wax ka qabato waxay la tahay inaan dhihi lahaa in maaragtay wax laga qabto oo maaragtay amniga xaggiisa loo jeesto fiicanta dhibaatadu haddaysan maanta ku taaban berri bay ku taabanaysaa hal laga wada shaqeeyo secondly waxaan kale ku taabanaya dadka reer Muqdisho habeenkii inta badan hal la iska ilaaliyo bajaajada waxaan idin leeyahay ma ina bajaajada ka cabsi gelinayo maanta Muqdisho waxay maraysaa heer fiidkii habeenimo يعني بتشاش دارت لو ku carraysa ma meesha joogtiniyo in kala durkiya dhays waayo bajaajada meesha la isugu soo digo laamaha maanka waxa kale oo aan u cadeynaya siyaabo fudud aan ugu sheegaya bajaajada dadka dhaca waa bajaajada taariikh ama bilan numberku uu rogan yahay ama uu tirtiran yahay bajaaj kasta oo bilan numberkeedu uu tirtiran yahay ama uu rogan yahay waa qayb kamid ah khalkhalgelinta amniga dhinaca kale kooxo ku labisan dariiska ciidamada dawladda ayaa maalmo ka hor waxa ay dhaceen agabkii yeelan ay ka qaateen goobo ganacsi oo ku yaala magaalada Muqdisho iyadoo aysan laamaha ammaanka arrinkaasi wax ka qaban sida ay inoo sheegeen Ibrahim Ali Aadan warbaahinta goobjoog magaalada Muqdisho